ma soo koobi karo mahadcelintii halka ay iga gaadhsiisan tahay waa laga yaabaa haddaan hadalladayda qaarkood inay idinka naxiso oo ay noqdaan hadalla qaarkood naxadin iyo tiiraanya leh ma rabo in dadku aad u naxnaxaan ama waxaan rabaa in la adkaysto taa waxaan uga jeedaa waxa weeye aniga oo cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo u soo dagaalamay dalka Soomaaliyeed anigoo dagaal ku jira yaan ku qaangaaday warigay ma shaqaysan shaqo guud mooyaane shaqo gaar ma aan qabsanin waxaan u soo dagaalamay naftaydii iyo dhiigaygana u horay dadka Soomaaliyeed yaan u soo horay waxaan u shaqaynayo u taagnaa ilaa hadda in aan xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed qof kamid uu nusan ciil qabin inuu sanin gudnimo iyo inuu daciifnimo uga hoos noolaado dad shisheeya qorshaygu kaas waha mabaadiida caynkaas ah markii aan arkay arigoo dadkaygii ku waayay oo dantaydii oo dhan uga baxay oo dunidan aan ku lahayn hal taako milkiya aniga kuma lihi boos kuma lihi oo guri kuma lihi oo xoolo ma lihi maxaa yeelay intaaba intaan ka tagay yaan dantan ummadda u baxay anigoo sidaa ugu soo dhintay markii aan arkay dawladda Soomaaliyeed habka ay ila dhaqantay qaabka ay u shaqaysay gaalka ayaa la iga qabtay saddex habeen baa lagu hayay si fool xun oo ihaana ah la ila dhaqmay waa la iga soo qaaday muqdisho la keenay waxa la ila dhaqmay si fool xun oo ihaana ah la ila dhaqday markii aan arkay iyadoo intii la gardo duubay oo indhaha la iga xidhay anoo cagacad oo qaawan lagu wareejiyay ciidanka Itoobiya waxay ahayd arrin aad iyo aad iga cadhaysiisay aadna iga naxisay markii aan arkay in mar kaleeto airport ku yaala magaalooyinka Soomaaliyeed aan qiyaasaya in uu ahaa darafka xuduudda dhuuxiga ma qaan bay dhabaynayd waa suuragal markii aan arkay intii la iga soo dejiyay aan qiyaasay in sawir laga qaadanayo isla markiiba diyaaradii lagu celiyay markii la igeeyay goday oo isugu soo baxeen Soomaalidii qaybteedii xumayd oo goday joogta dhaanta markay ugu dul qabsadeen aflagaada markay miiseen say hayeen markii laga qaaday anigoo ihaanaysan oo ka tiinadaysan oo lugaha ka xidhan oo cagaha oo indhaha ka xidhan oo gacmaha ka xidhan waxaan aaminay in aanan dal lahayn waxa iga dhacday oo qalbigaygu isweydiiyay in aanan dad lahayn waxaan arkay oo isiri arxan malihid waxa iga baaday arrintaasi waa murugo aad u xanuun kulul baahayd waxa iga baaday markii aan arkay oo ogaaday in aan leeyahay walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan oo dareenka fooshaxun hal mar wada dhaqaajiyay oo heel iyo hoob ila garab taagan arrintaas iga baaday runtii waxa ii muuqatay in aan ahay qofka dadka ugu ehelka iyo arxanka badan waxaan gartay dhibaatadan waxa ii geysatay inay ahaayeen ashxaas dambiir aan lahayn ashxaas shaydaan u hogaansatay iyadana waxa u furan inay toobad keento waxaan hawlahooda uga hadli doonaa markale si fiican walaalayaal runtii ma soo koobi kara mahadcelintiina waan xamaasadaysnahay waana laga yaabaa hadalku inuu iga dhacdhaco waxaan markale ku soo noqon doonaa hadalkayga qaybtiisa dambe wixii dardaarana iyo waxaan anu ku shaqaynayay iyo habka aanu ballan qaadi doono waxaan sii wadanayaa mahadcelintii waxaan u mahadcelinayaa bahda saxaafadda ummadda Soomaaliyeed ama gudaha ha noqoto ama dibadda ha noqoto oo ayaduna qaadatay door aad u weyn oo gaadhsiinaysa dhammaan shucuubta Soomaaliyeed barba xaaladaydu halka ay marayso iyo qaabkii loo dhaqmay iyo habkii baarlamaanku u difaacay dhammaan saxaafadda ummadda Soomaaliyeed afka Soomaaliga ku hadasha waxaan u tabinayaa hambalyo iyo mahadcelin baan iyadana u tabinayaa lambar 5 waxaan iyadana rabaa inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya oo go'aansaday aniga oo maxbuus ah oo god salki ku jira inuu iga soo saaro si sharaf iyo maamuus lana ii sii daayo iguna marti qaaday xafiiskiisa waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed habka uu u dhaqmay ee isbedelka ee u soo daayay maxaabiistii ku jirtay jeelasha Itoobiya intooda badanna xaq darro u xidhnaa runtii ma aha taasi waxaan af ku soo koobi karno ra'iisul wasaare Abiy Ahmed
wuxuu u muuqday qof cadaaladda iyo sinaanta u soo jeeda qof walbana doonaya xaqa iyo waajibka uu leeyahay inuu mariyo iyadana asagana waxaan dhihi lahayn halka inuu ka sii wado inkastoo u dhiman tahay meelaha qaarkood dhibaatooyinka ka jiray ay sidii u socoto waxaan aaminsanahay in ayadana xal laga gaari doono aad baan ugu mahadcelinayaa qaabku u dhaqmay iyo qaabku siyaasiyiintii kale ula dhaqmay iyo qaabku xubnihii Soomaalida ahaa iyo oona lefti u xidhnayd habku ula dhaqmay iyo habku u sii daayay sidoo maamuusay aad baan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan aniga qaabku ila tacaamulay iyo qaabku uu sii daayay isagoon cidina tala ka siinin isagoon cidina wax qorshe ka siinin cid kaliya ee uu sheegay rag ayaga kamida maaha isaga uu sheegay hawsheeda markaan wax ka weydiiyay wuxuu hal nin ya arintaada in badan nagu soo celceliyay bi marna si ka fool aan isaga aragnay wuxuu ahaa bay guuri Axmed Madoobe ma cadayn karo laakiin waa sidoo isagu dhahay sida darteed qaabkaas aad baan ugu mahadcelinayaa runtiina waxaad moodaa inuu jaha fiican qaatay siyaasiyiinta iyo madaxda sida ay uga hadlayeen waan la qabaa in jahada la qaatay iyo marxaladda maanta oo eeg marxalad kala guura in si fiican looga wada faa'iideysto